sidee baynu u aaminaynaa hadalladooda kuwa dhahaya shayga ama waxaasi kuuma suurtagalayaan inagoo leh rabbi ina odhanaya ibarya waan idin ajiibayaaye dadka qaar bilowga ay iska kaa jaahilsiinayaan kadibna way kugu jeesjeesayaan kadibna way kula dagaalamayaan intaa kadibna adigaa ka guulaysanaya maxaa ka dulmi badan qofkaa siinaya jeebkiisa lacag si uu u iibsado qalbigaada moodayana in qalbigaagu qiimo gooyo waxaa aad u adag qofka inuu garto nafsadiisa waxaase aad u sahlan inuu waaniyo dadka kale ma jiro shay kor u qaadaya sharafta gabadha aanan ka ahayn dhowrsanaanta ee haddaba gabaray sharaf iyo magaca ka raadin qaawanaan ee ogow sharaftaadu waxay taallaa dhowrsanaantaada goortii uusan insaanku awood u lahayn inuu soo saaro waxa gudihiisa ahaaday wuu ooyaa oohintaasina waa mid ka tarjumaysa hadallo uu awoodi waayey inuu soo mariyo afkiisa maxay xanuun tahay inaad ahaato mid u diyaara inuu siiyo dadka hareerihiisa ah farxad aadna ka caajiso nafsadaada inaad farxad siiso rajadu waa saaxiib wanaagsan laga yaabaa inay maqnaato oo soo daahdo balse kuma khiyaanto abid iska jir inaad laba mar wax ka dalbato bani'aadam maxaa yeelay marka koowaad sharaf ayay kuu ahayd balse marka labaad waxaad aasaysaa sharaftaada iyo qiimahaaga keliya laba mar iyo ka badanba ka dalbo allaha sarreeye ee wax kasta awooda ha ka caraysiin waalidiintaada si aad u raaligeliso kuwa kale ogow kuwa kale umaysan duugin noloshooda si ay u dhisaan adiga noloshaada